gobolada Sool iyo Sanaag Sool iyo Sanaag dad Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan oo mabaadida iska raacsanahay waliba dad midnimada u taagan oo midnimada jecel oo dhibaatooyin badan marka qaarkood iyo culays badan ay midnimada ku soo gaartay waay laakiin waxaan rabnaa victimka ay yihiin history ay leedahay taariikh ay leedahay annaga maan geographic history ay leedahay colonial history ay leedahay tribal qabiil history ay leedahay waa area oo complexity-geedu aad u badan yahay oo definitions badan u baahan waa area u baahan framework Soomaalinimada in lagu xalliyo marmarka qaarkood framework qabiilka ama kii isticmaalka history isticmaalka ama geographic sheeg bas oo noo xalinaynin laakiin waxaan qirayaa oo sida daataba aan dadkii Muqdisho uga hadlayay dadkaasi wax badan oo ay mudan yihiin oo politicska waliba iyo representationka in ay ka maqan yihiin iyo developmentiga iyo laakiin waxaan u baahanahay xalkooda meel weyn oo Soomaalinimo inaan ku jirnaa villa Soomaaliyana laga maxalli karo garowna laga maxalli karo Hargeysana laga maxalli karo marka mashruuca weyn Soomaalinimada ay socdo in lagu dhaxaliyo ayaa aad iyo aad muxuu ahaay ilaha boon waana sympathy badan aniga runtii aan u hayaa dadka ku nool goboladaas